أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaa idin fadhiya walaalkii maxamed kood waan hormarno caawa chance oo helay inaan wareysano Ibrahim Shure talk show akoodo ku soo dhaw talk show-ga walaal waxaan rabaa inaan ka wareysto maanta arrimaha doorashooyinka iyo sida aad aragto walaal maxsan tahay Albert waxa ka dhacaya municipal election oo degmooyinka iyo tuulooyinka ka dhacaya oo maayarradii iyo councilorradii iyo school boardkiiba la dooranayo trustees anaga hadda waxaan ku noolahay capitalka magaalada Edmonton waxa cararaya 7 nin oo maayarka iyo 14 degmo oo dad councilor cararayaan iyo 9 zone oo school trustee ay ka cararayaan marka maayarradu marka loo fiirsho inaga markii dadku gaarayaan decisionka magaalada oo la qosayso oo dadka meesha noogu sokaysa waa khasab inaynu dadka wax ku yeelano sababtoo sharciyada dejinayaan iyo qabadkoodu labaduba saameyn bay nagu leeyihiin marka maayarrada waa 7 laakiin laba ugu caqab waa nin la yiraahdo Michael Walter iyo Tim Caramel labadan nin baa ugu ciyaaraan marka hore Tim waxa la lahaa Michael baa horeeya hadda laakiin waxa uu egtahay inuu Tim Caramel uu horeeyo idan ma kala jeclay midkii horeeya midkii kale labadaba waxay u baahan yihiin inaan la sameeyno xiriir baa la sameeynay ballamay noo sameeyeen kulliba weekend soo socda aan baan gaari doonaa dadkayga Soomaalida cidii aan markaas taageerano ay u egtahay inuu noqonayo sababta maayarka iyo councilorada horta codkoodu waa simeeyeen markii la noqoto issue laga hadlayo doorashadoodu waa hal cod laakiin maayarka waxaan aan diirada u saarayna magaalada dhan baa laga doortaa Soomaal meel kasta Soomaaliya waa joogo uu dooran karaa oo different bayna samayn karnaa mideeda kale ninkan waa ninka administration-ka iyo executive-ka oo go'aamada gaara department-yada soo isaga in isaga gaara marka waxaan u baahanahay in isaga focus ka saaro marka hadda macnaha waxaad ka wadaa waxaanu ogaan doonaa bishan ugu jiro October dhexdeeda ilaa 10keeda in qofkaanu dooran doono inaanu anagu aanu la baxno ma hadda anaga maalintii way noo yimaadeen shirki aan noo yimaadeen kabacdina ballamaan kasoo sameeysanay qayb waan la kulanay qaybna waan noo hartay hadda anagu ma rabno go'aanina gaar laakiin waxaan jecelahay 7 bisha ka hor inaan go'aan gaar 7 bisha waxa bilaabanaysa doorashada bilaabanaysa oo advance-ka soo daadligeed baan rabnaa midda kale aan rabaa inaan dadkeena xusuusano waxaa socda board school board trustee election laba noogu jirta laba qof waana bir muhiim waa meesha nalka Xasan iyo Muro labadaasna waa in la taageero oo laga warhayo oo dadka gobollo meeshooda degan inay taageeraan dhaqaale iyo volunteer-yana waa loo baahan yahay waan kaaga mahadcelinayaa horta sida projectnaanta aad uga warqabto community-ga inkastoo aad waxyaalo badan oo under table ii sheegtay oo aad dib oo la wadaagi doonto arin kaliya ii sheegtay dib oo la wadaagi doonto shacabka ku degan magaalada Edmonton taasna waa kaaga mahadcelinayaa mana ka hor dhacayo ma sheegayo kol labaad aan keeni doona waxay arrintaas tahay hasa ahaatee waxaan kaaga sii mahadcelinaynaa sida aad u gacan qabatay dadka masaakiinta ah waddanka ku cusub xataa sida aad u gacan qabatay iyo adigoo aan ku aragnay inaad raashin mararka qaarkood aadan awoodi karin xataa jeebkaada aad ka dhigto oo aad siiso dadka masaakiinta ah ama food bank aad u tagto oo u soo qaado ayagoon haysanin baabuur ama waxay sameeyaan aniguna aan xoogaa yaroo maaragtay caawinaada ku siiyay asfaariga xoogaa yare kala wada ay faari dooneen marka aad baa kaaga mahadcelinaa taa iyada ah midda kale haddii anagu idinkaana xukuma community-ga Soomaalida saaxiibkay Jibriil baa asna ku jira oo arrimaha kula wada iyo Xabiibo oo ah gabar aad iyo aad u fiican oo runtii qiimo ku leh community-ga Soomaalida iyo dad badan oo magacooda inta ku koobi karin marka intaas oo dhan waan iga mahadcelinaynaa marka maxaad ku talin lahayd inaad hadda dhahdo yaan dooranaa base dib aad u dhiganaysaa ما تضمن بالشع وتلاذة ذا كور بانو صوب اللي جدونا عدا سلام هاي
taageeradeeda oo commitmentiga ay nagu leeyahay hal baan sir rabaa inaan ku daro arrintan hadda ka hadashay waa dhibic lagu dhex shoogay ciid badan bacaad badan bay noqonaysaa waxaan hadda aan ka hadlaysay waxaan rabaa inaan dadka ogeysiiyo arrinta na haysata waa arrin aan weligaa waagii ciyaalka la wiilasha ilmaha la dili jiray xataa saan man waagii ciyaalkana la ka qaadan jiray xataa saan sidaan arkay homelesska magaalada ka jirta iyo dadka rafaadka haysta wax loo adkaysan kara maaha so waxaan rabaa walaalayaal inaanu dhibaatada sheegno waa laga fiican yahay solutionkii wey waxa hadda ka hadlayno oo ah ninkan maayarka wuxuu yiri waa in la shaqeynaya counselorkan waa in la shaqeynaya school boardkan waa in la shaqeynaya marka inagu inaynu raadino midda kale qofku maanta noo baahan yahay haddaynu rabno inuu berri wax qabto haddaan maanta waa la shaqeyn weyse berrito xataa albaabkaa furmayo waa khibradda aan yeelanay weya oo mar badan soomaalidu ay iyagu cabaadaya noo yimaadaan yirahdaan qofkaas waxba nooma qabto sababtoo kale marka uu baahida qabo waa inaad wax la qabataa wax kale maaha inaad volunteer galaysid inaad maxaa la yidhahdaa board dhowr noo kala samaysid haddaad fundraising la qaban kartid waxyaalaha hadda marka waxaan rabnaa in aan arrintan ku boorino dadkeena inay u feejignaadaan doorashada soo socota 7 ilaa 11 Edmonton Calgary waa 6 ilaa 11 weeyaan ama 6 ilaa 11 marka waa in aad ka qayb qaadato haddaadan ka qayb qaadan waxa weeyaan nin baa oran jiray if you are not maartay on the table you are the mini annaga sanadkan waxaan rabnaa in aanan mini noqonin on the floor inaan noqono meeshaas haddii la أدبك عمل إننا وقت كان خالي عن مسيسي آليات وما سنتهي عقل هذا مضى إبراهيم إلهي كل شيء هول بدن بنواي صفي عن أرنت ما هو مهم سنة وعي قلنت ضدك ما أوجع وحي كم التعي شغال الله قبض ضدك أنا ضدك ورجلس أرنت أسوأ كوبو حوجين يا وأنا كوبو صبوت قريني يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you very much.